Puntland ayaa ciidamo ka badan 10,000 oo askari tababar u soo xirtay kuwaas oo ku qalabeysan gawaari iyo sidoo kale hub casri ah oo dad badan ay la yaabeen hubkaasi cidda ka caawisay ayaa muuqaalkan ku arki doonaa sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh oo sheegay in Mareykanka ay ka socdaan dadaalo lagu aqoonsanayo maamulka Somaliland iyadana muuqaalkan ayaa ku arki doonaa balse marka hore wax ka codsanayaan YouTube-kana ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalkan la inoo saarto sidoo kalena gambaleelka furato si ay ku soo gaaraan muuqaalada maalinlaha ayaan halka ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo Puntland ayaa ciidamo ka badan 5,000 oo askari oo ku hubeysan hub iyo gaadiid casri ah u soo xirtay tababar madaxweyne Deni oo isagu ciidamadan tababarka u soo xiray waxa uu sheegay inay ciidamadan qayb ka noqon doonaan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ku dhumaaleysata buurleyda gobolka bari ee Puntland ciidamadan ayaa waxay ku qalabaysnaayeen hub iyo sidoo kale gaadiid casri ah oo aan Puntland laga isticmaali jirin gaadiidkan iyo sidoo kale hubkan ay ciidamada difaaca Puntland ku qalabaysnaayeen ayaa waxay ahaayeen hub loogu talagalay in lagu isticmaalo dhulka buurleyda ah ciidamada difaaca Puntland kula dagaalamayaan kooxda Daesh waa hub aad u culus oo waxa weeye loogu talagalay maadaama aysan gawaaridu aysan gali karin buurahaasi waxa loogu talagalay in ciidamada difaaca Puntland hubka culus ay buurahaas la galaanin sidoo kale gawaari casri ah ayay Puntland soo bandhigtay kuwaas oo iyaguna qayb ka noqon doona dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ciidamadan oo kamid ah kuwa lagu magacaabo BMBF-ta oo ay taageerto dawladda Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay ku qalabaysnaayeen hub iyo sidoo kale gaadiid casri ah waxa la sheegay in dawladda Imaaraadka Carabta ay hubkan casriga ah iyo sidoo kale gaadiidkan ay Puntland ciidamadeeda ugu qalabaysay maadaama ay Puntland ku jirto dagaal ka dhan ah kooxaha argagixisa ah isla markaasna ay meelo buuraley ah ay kula dagaalamayso dawladda Puntland ayaa la sheegay in ay dawladda Imaaraadka Carabta ka codsatay hubkan lagu talagalay meelaha buurleyda ah waxa la sheegay in Puntland kadib markii ay aragtay ama ay cashar ka baratay dagaaladii hore iyo inaan hubka waaweyn lala gali karin waxay dawladda Imaaraadka Carabta ka codsatay in hub dhabarka lagu qaadi karo lana gali karo buurahaas ay ka caawiso maadaama ay kamid tahay ama kamid ahay dawladihii sida gaarka uga caawinayay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh ee halkaas ku dhumaaleystaa madaxweynaha dawladda Puntland oo isagu ciidanka tababarka u soo xiray waxa uu sheegay in ciidamadan loo carbiyay dagaalka ka socda buuraha Calmiskaad isla markaasna ay yihiin ciidamo ku dagaalami kara meelaha buuraha ah waxa uu sheegay sidoo kale madaxweyne Deni in kooxda Daesh ay ku dhumaaleysata buurleyda gobolka bari ay ka weerari doonaan dhulka cirka iyo sidoo kale badaba madaxweyne Deni waxa uu sheegay in bilaha iyo maalmaha soo socda ay rajeynayaan inay kooxda Daesh ay ka soo afjaraanin buuraha Calmiskaad ay ku dhumaaleysanayaan sidoo kale madaxweyne Deni waxa uu sheegay in kooxda Daesh ay hadda go'doonsan yihiin aysan haysan meel ay ka helaan saad rasaas iyo sidoo kale dhiig iyo waxyaabo la mid ah hadii u baahdaan waxa uu sheegay madaxweyne Deni inaysan haysan meel ay ka heli karaan intaas oo dhan dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ay socdaanin ama Mareykanka ay ka socdaanin dadaalo lagu doonayo in lagu aqoonsado maamulka Somaliland madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee Washington Post waxa uu sheegay in madaxweyne Trump lagu cadaadinayo inuu aqoonsado maamulka Somaliland ayna ku cadaadinayaan xildhibaano iyo sidoo kale xubno ka agdhow madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in balse waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan arintaasi ka yeeli doonin una ilaalinayo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed muddooyinkii u dhameysay waxa isu soo tarayay wararka sheegaya in maamulka Somaliland oo in muddo raadinayay aqoonsi uu Mareykanku aqoonsanayo labadii sano ama sanadka ugu dhameeyay wararkaasi aad ayay suuqa ugu jireen wararkaas ah in madaxweyne in la aqoonsanayo Mareykanka aqoonsanayo dawladda ama maamulka Somaliland oo aqoonsanayo si gaar ah waxa wararkaani u soo bateen markii dib loo doortay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo arintaasi isagu awal mar uga dhawaajiyay inuu aqoonsanayo maamulka Somaliland balse arintan ayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uusan wili ka hadlin daawadayaal hadii aad halkan la soo gaarteen waxa ka codsanayna muuqaalka YouTube muuqaalka like noo saarto YouTube-kan ku soo biirto sidoo kalena gambaleelka furato si ay ku soo gaaraan wararka maalinlaha ay halkan ku soo gudbino